Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Dunidan ay ku noolahay waxaa ka jira kooxo shuftooyin ah oo ka shaqaysta xatooyada, dhaca, boobka, dilka iyo ka ganacsiga maandooriyaasha, kuwaasoo intooda badan ay ka howlgalaan wadamada horumaray iyo kuwa soo koraya. Kooxahani kaliya kuma kubna suuqyo ay gaar u leeyihiin oo loo yaqaano suuqyada madow oo ganacsigooda maandooriyaashu ka shaqeeyo, balse waxay xiriir la leeyihiin madaxda dowladaha adduunka qaarkood. Halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa 5 kooxood ee sida fiican la iskula aqoonsan yahay inay ugu khatar badan yihiin caalamka. Nambarka 5aad waxaa gashay Mexican Drugs. Kooxdan ayaa ah tuugo isu suraakaysatay inay Mareykanka geliyaan maandooriyaasha kuwaasoo kasoo jeeda wadanka Mexico. Faragelin xad dhaaf ah oo maamulada gobolada Mareykanka ku hayaan ganacsadayaasha daroogada ee Colombia kasoo jeeda ayaa sababay inay ka yaraadaan dariiqooyinkii ay Mareykanka ka geli jireen. Laakiin kuwaasi waxaa bedelay tuugo waaweyn oo kasoo jeeda wadanka Mexico oo si xoog leh uga howlgala. Waxay isticmaalaan hab argagax leh oo haddii la isku dayo in marinadooda laga hor istaago intay dad afduubaan, dabadeedna ay ka duubaan muuqaal iyagoo ku hanjabaya inay dili doonaan, kuwaasoo muuqaalada soo geliya mareegta muuqaalada la isu gudbiyay ee YouTube. Kooxda afaraad ayaa ah Italian American Mafia. Waa koox maafiyada Talyaaniga ah oo ka hirgasha wadanka Mareykanka, waana farac ka tirsan maafiyada Talyaaniga ee loo yaqaano Cosa Nostra. Inkastoo ay markabaasanaan jirtay meelo badan oo adduunka ah, laakiin iminka waxay ka howlgashaa oo keliya magaalooyinka New York iyo Chicago. Wasiirka amniga gudaha ee wadankaasi ayaa kor u soo qaaday magacooda in badan. Maanta waxaa magaalada New York ka howlgala 5 farac oo kooxdan ka tirsan. Nambarka 3aad waxaa galay Russian Mafia oo ah maafiyada Ruushka. Waxaa la qiyaasaa inay maamulaan marka dhulka Ruushka loo qaybiyo 10 meelood meel ahaan iyo weliba 4 meelood oo meel ahaan dhaqaalaha wadankaasi. Waxay ka kooban yihiin 300 oo xubnood oo u kala qaybsama 450 farac oo ku baahsan wadankaasi. Kooxdan oo lagu yaqaano ahmaqnimo aanay cidna u turin, waxay inta badan dabagalaan wariyaasha, booliska iyo saraakiisha sarsare ee wadankaasi. Kooxda labaad ee ugu khatarsan xagga dilalka iyo dhaca waxay ka hirgashaa wadanka Japan. Waxaa la yiraahdaa Yakuza. Kooxdani waxay fulisaa dilal qorshaysan iyagoo aan sharciga ka waabanayn, maxaa yeelay waxay xiriir la leeyihiin siyaasiyiin badan iyo xitaa kooxaha u janjeera midigta. Faraca ugu weyn ee kooxdan ka tirsan waxaa la yiraahdaa Yamaguchi, taasoo xubnaha ku jira ay gaarayaan 39,000 oo qof. Waxaa la sheegaa in kala badh tuugta waaweyn ee wadankaasi laga dambeeyo ay kasoo jeedaan. Hogaamiyaha faracan waxaa la yiraahdaa Kenichi Shinoda. Waxa uu kasoo maamulaa jeelka waxaana la xidhay muddo haatan laga joogo 17 sano. Xubin kasta oo ka tirsan kooxdan Yakuza waxaa la jaraa mid farihiisa ka mid ah haddii uu fashilmo hawl loo diray. Waxay jirkooda ku sawiraan calaamad u gaar ah oo haddii si kasta la isugu dayo in loo masaxo aanay suuragal ahayn, waxayna qaadataa in sanado lagu dhammaystiro. Kooxda ugu khatarsan budhcadda ayaa ah Italian Mafia. Kooxaha Talyaaniga ahi waa kuwa ugu horeeya ee markaba maskaxda qofka kusoo dhacaya marka laga hadlayo dilalka iyo budhcadnimada qorshaysan ee laga geysto meelo badan oo adduunka ah. Sanadkii 2010 qiyaas la sameeyay waxaa lagu ogaaday inay haystaan hanti gaadhaysa 50 bilyan oo doolarka Mareykanka, waxaana la sheegaa inay ka mid noqon lahaayeen shirkadaha ugu waaweyn ee wadanka Talyaaniga haddii ay midoobi lahaayeen. Kooxdan maafiyada ah ee ugu caansan waxaa la yidhaahdaa Cosa Nostra, waxaanay caan ku tahay inay adeegsato kooxo yaryar oo ka hoos shaqeeya oo la yidhaahdo Omerta, taasoo lagu yaqaano inay howlaheeda u fuliso si qarsoodi ah oo xataa aanay ogaanin saraakiisha dowladdu. Kuwan iyo kooxaha kale ee maafiyadu waxay howlgalladooda uga faa'iidaystaan bulshooyinkan danyarta ah iyo kuwa laga dul nool yahay si ay u hantaan awoodda ay wax ku duufsanayaan. Haddaba daawade, fadlan subscribe saar kanaalka haddii aad ku cusub tahay oo riix jaraska isla markaana ka mid noqo asxaabta ku xidhan kanaalka si ay kuu soo gaadhaan barnaamijyada waxtarka leh ee aan idiin soo gudbin doonaa hadduu eebba idmo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.